بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن داوديال كوسو دوادا جنالكا قولها ميديا فضلا هدية تامركي كوغوريسي سبسكرايب نود لايك شرنا هكيل مامن وعي تلي تصالح نحاد إنه قربتان قيبتا كومنتيغا وينو إذين أخرنجونا هدي ولها ودله رالي كنقضو قضبضا مانتا أن إذين هننا وحاكم إذا وزير كترسان حكومة الصومالية وكهل كولان ومقالة قروي كوريا شيء هجاميه جبلان إسلام أحمد مدوبة هذا محيك وضالين channel ka golaha media ka daawo sidoo kale waxaan idin heynaa wafdi hordhac u ah safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray Dhuusamareeb halka oo lagu wado inuu ka furmo wajiga labaad ee isugu imaanayaan dowlad goboleedyada dalka waliba dowladda federaalka Soomaaliya channel ka golaha media ka daawo sidoo kale waxaan idin heynaa safarada Soomaaliya ee Suudaan oo ku guuleysatay xalinta caqabado soo wajahay jaaliyada Soomaaliyeed channel ka golaha media ka daawo sidoo kale waxaynu idin heynaa qaramada midoobana waxa ay ka digtay macluul ay dunida wajahayso qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal idin heynaa hadii ay tahay markii kugu horeyso subscribe inoo dhe like iyo share ka ilmaamin wixii taliye tusaale noogu reeb qaybta commentiga aynu ku bilaabnay wafdi hordhac u ah safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray Dhuusamareeb wafdi la sheegay inay hordhac u yihiin safarka madaxweyne Farmaajo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug howlwadeeno ka tirsan madaxtooyada koox qaabilsan hab maamuuska ilaalada gaarka ee madaxweynaha ay ka kooban yihiin wafdigan bari oo sabti ah ayaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka degaan wafdiga madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle Koonfur Galbeed oo ka qayb galay aaskii ra'iisul wasaarihii hore Xasan Abshir ayaa shalay gelinkii dambe ku laabtay magaalada Dhuusamareeb madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo Garowe kaga qayb galay aaskii madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Abshir ayaa la filayaa in bari ay ku laabtaan Dhuusamareeb iyadoo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo xalay Garowe ku hoyday ayaa maanta gaaray Dhuusamareeb sida ay wararku sheegayaan waxaa muddo dheer kadib magaalada Garowe caasimadda Puntland kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar Axmed Madoobe iyo Omar ayaa hore isu qabtay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo oo mar kale dib madaxweynaha Jubbaland loogu doortay Axmed Madoobe waxaana xusid mudan in Omar uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeestay doorashadaasi talaabadii keentay inuu aad u sii xumaado xiriirka labadan shakhsi ayaa ahayd markii wasaaradda gaadiidka ay ku dhawaaqday in la joojiyo duulimaadadii diyaaradaha ee magaalada Kismaayo sidoo kalena la amray diyaaradaha u socda Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland inay soo maraan garoonka Aadan ee magaalada Muqdisho ujeedadii ugu weyneed ee diyaaradaha Kismaayo loo xayiray ayaa ahayd in la baajiyo xafladii caleemasaarka ee Axmed Madoobe balse ugu dambeyn waxaa dhacday xaflad ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin badan oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo waliba Shariif Sheekh Axmed qoraal kooban uu wasiir Omar soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay inuu Garowe kula kulmay madaxweyne Axmed Madoobe hayeeshee uu wali sidiisii yahay kala aragti doonaanshihi ka dhaxeeyay xalay martisor Garowe kala duwanaanshaha fikirka siyaasadeed waa halkiisii sidaas waxa yiri wasiir Omar oo qoraalkan kooban soo dhigay bartiisa Facebook waana mid uu uga jawaabay hadalhaynta kulanka ka dhalatay kulankan oo aan wali faahfaahin rasmi ah laga bixin ayaa waxa sidoo kale wararka aan helnay ay sheegayaan inay jiri doonaan kulamo kale oo ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb oo dhawaan ka dhici doona shir u dhaceeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira wali waxa daawanaysan channelka golaha media safarada Soomaaliya ee Suudaan ayaa ku guuleysatay xalinta caqabado soo wajahay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa cabasho ka muujinayay baryahan isbedelo la sheegay lagu sameeyay khidmadda adeega iqaamada dalku jooga ee dalkaasi Suudaan oo lacag lagu kordhiyo taas oo ay sheegeen in saameyn xooggan ay ku yeelatay guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed safiirka Soomaaliya ee Suudaan ambassador Maxamed Sheekh Isxaaq oo u waramay wakaalada wararka Sona ayaa sheegay inay ku guuleysteen xal u helidda cabashooyinka ay muujiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi kadib kulan ay la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Suudaan waxa ugu bishaareynayna in safaaradu ay ku guuleysatay inay xal ku meel gaar ah u heshay arrimihii baryahani taagnaa ee la xiriiray lacagaha lagu kordhiyay iqaamada dadka haysta baasaboorka Soomaaliga kadib markii aan la kulanay jihooyinkii ay quseysay arintaasi ayuu yiri danjire Maxamed Sheekh Isxaaq oo soo la hadlay
dhanka kale danjiraha safaarada Soomaaliya ee wadanka Suudaan mudane Maxamed Sheekh Isaaq oo ku weeliyay u qaybsanaha arrimaha ganacsiga Yuusuf Axmed Jago ayaa dhawaan la kulmay maareeyaha guud ee hay'adda duulista hawada ee wadanka Suudaan mudane Ibrahim Dalaan Ibrahim waxayna ka wada hadleen waxyaabo khuseeya danaha labada dal ee walaalaha ah iyo waliba adkeynta iskaashiga fududeynta dadka Soomaaliyeed ee dalkooda dib ugu laabanaya maadaama COVID-19 uu dad badan xayiray sidoo kale xiriirka labadan wadan kulankaasi ayaa sidoo kale looga hadlay inay isdhaafsadaan khibrad iyo waliba booqasho labada hay'adood Soomaaliya iyo Suudaan wuxuuna safiirka ka codsaday inay tababaro siiyaan saraakiil ka socota hay'adda duulista hawada Soomaaliya dalka Suudaan oo kamid ah wadamada Carabta oo xiriirka dawladda ee Soomaaliya waxa ku nool bulsho badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo isugu jira arday ganacsato iyo dad kale oo halkaasi deegaansanaya qaramada midoobay ayaa ka digtay macluul ay dunida wajahayso qaramada midoobay ayaa bilowday dib u eegida codsi loogu talagalay in lacago loogu deeqo wadamada ugu saboolsan adduunka taasi oo ay kula dagaalami doonaan cudurka dilaaga ee coronavirus madaxa gargaarka bini'aadanimada ee qaramada midoobay Magga Lowcock ayaa ka digay inay jiraan dalal badan oo ay macluul ku sii kordhayso kuwaas halka ay cunto yaraan baahsani ku habsatay iyadoo dhaqaalahoodii uu saameeyay cudurka safmarka dunida saaqay ee coronavirus qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in 265 milyan oo qof ay dhamaadka sanadkan wajihi karaan macluul ba'an sabab la xiriira viruska corona waxayna codsanaysaa hay'addu lacag dhan 10.3 bilyan oo dollar lacagaha ay qaramada midoobay dalbanayso ayaa waxa loogu adeegi doonaa wadamada uu dhaqaalahoodu cagaha badan ku taagnayn iyadoo hay'addu ka digtay in haddii aanay wax ficil la qaadin ay dunida mustaqbalka wajihi doonto dhibaatooyin la xiriira horumarka hay'adda ayaa markii hore bishii Maarso codsatay lacag dhan 2 bilyan oo ay kula dagaalamayso cudurka COVID-19 oo saameyn weyn ku yeeshay wadamada ugu faqrisan dunida codsiga labaad ee hay'addu ayaa ku soo beegmaya iyadoo wadamadii qaniga ah ee lacagahaasi bixin jiray ay haatan iyagiiba la daaladhacaya dib u soo celinta dhaqaalahoodii ee uu saameeyay viruska laakiinse waxay hay'addu ka codsatay inay caawiyaan wadamada faqriga ee uu la degay warkii aad kala socoteen channelka Golaha Media wanageynta hadii ay tahay markii kugu horeysay dhageystay waxaad inoo saartaa subscribe like share na kilmaamin wixii taliyo tusaalaan waxaad inoogu reebtaan qaybta commentiga nabadgelyo anigu duceysan waan idin tabiray